gudoomiye Sacdiyo iyadoo gudoomiye runtii haday xeerkan ay ku soo qaadatay waxay ahayd inay dadka u dhibto hatta inay iyadu ka hadasho ma ahayn sida ogtahay waxayna ku jirtay baarlamaankii hore oo tobnaad maaha baarlamaankan cusub oo hadda loo hoosgelin karo ayadaan cadaysay inay magaci ka bedeleen oo magac kale loo bixiyo halka qodob rabaa waa inuu dhaho waa inuu nacamti raaciyo inaan baarlamaankan laga dhex keenin dalka Soomaaliya laga bixiyo wixii qandaraasada ku soo qaatay loo geeyo iyo qoladii loo lahayd la dhahdib baa leen kugu cish soo koobay xeerka jinsiga anigu waxaan aaminsanahay xeerka jinsiga aan ogahay waxda way ogtiin ama aaminsanahay in xeerka jinsiga la sheegayo yahay xeer xaaraan oo dalkeena iyo dadkeenaba aan mudnayn in la dhex keeno gudoomiyaha baarlamaanka maanta uu ka hadlay hawshaas waan uga mahad celinayaa runtii waa nin sheekh ah hawshaas uu ka hadlay laakiin hal arrin oo yiri waan rabaa inaan xoojiyo gudoomiyuhu wuxuu yiri ma keenayno wax ka baxsan diinta muslimka laakiin ma uusan raacinin xeerkaas sidiisa waa xeer gaalo wax lagu leeyahay jinsiga meelahaas laga keeno lagu leeyahay genderka lagu leeyahay waa xeer gaalo xeerkeena ma anagu culummo leenahay dad islaam aan nahay dad muslima oo kitaabka jaamaca 14 boqolka quraanka cadadiisa dad ku dhaqmay ku dhalay baan anagu wax ka baxsan oo la soo hoosgaliyo hadba magac inta loo bixiyo magac laga bedelayo oo hadba maxaan ku dhaayay tiisha qorshe gooni loo keenay siisa bataatanba inaan baarlamaankana la keenin dalkayaga baan horta gudoomiyaha rabaa inaan intaas ku codsado dadweynahan anaga xildhibaanada ka ahaana walaasha Sacdiyo waxay tiri waa la ansixinayaa haddaan la ansixin waa ka tagayaa dalka ama waxa la isku maamulayaa xeerka gaalada sharciga gaalada horta gudoomiyaha Sacdiyo waa tixgelinaya oo xurmeynaya waa gudoomiyahii waa gabar gudoomiye ah hal arrin baan rabaa inaan fartiinayna halkaan uga diro gudoomiye Sacdiyo iyadoo gudoomiye runtii haday xeerkan ay ku soo qaadatay waxay ahayd inay dadka u dhibto hatta inay iyadu ka hadasho ma ahayn sida ogtahay waxayna ku jirtay baarlamaankii hore oo tobnaad maaha baarlamaankan cusub oo hadda loo hoosgelin karo ayadaan cadaysay inay magaci ka bedeleen oo magac kale loo bixiyo waad arkayseen iskaafka yarka halka saaran iyo boorkii gadaal ku dhaganaa kalaradu ah way arkayseen kalarka dadka la qaamaluudna kalarada calaamadahooda wax taqaanaa waa ayadoo la kala saaray horta runtii waxaan oran lahaa marka gudoomiyaha khayr Allah siiyo waxyaabahaas oo kale inay ka hadasho ama soo istaagto ma ahayn way ogeed baarlamaanka hore gudoomiye ku xigeenka ayada la midka ahaa uu ka hadlay waana joojiyay xaraam inuu yahay sharci xaraam ah oo ummadda iyo dalka iyo dadka iyo baarlamaanka aan in la horkeeno aan ahayn wacdi gudoomiyaha khayr Allah siiyo meesha joogan waa ugu mahad celinayaa gudoomiye ninka la yiraahdo mursal sidoo kale gudoomiye aadan madoobaana fartiintaas u diray si fiican buu maanta baarlamaanka uu maskaxdooda u dajiyay dadweynaha Soomaaliyeed maskaxdooda u dajiyay culimada adduunka maskaxdooda u dajiyay laakiin halka qodob rabaa waa inuu dhaho waa inuu nacamti raaciyo inaan baarlamaankan laga dhex keenin dalka Soomaaliya laga bixiyo wixii qandaraasada ku soo qaatay loo geeyo iyo qoladii loo lahayd la dhahdib baa leen kugu cish aad baan u mahadsantihiin runtii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka sharcigan iyada soo bandhigtay xeerkan أنا سعدية خير هرت شرع هذه شرع جميل وقدي شرع وشرع عن كل على وشرع محن كل شرع جني وشرع أنا عن كل قرني وما يكلمان على سعدية كمان على من ميدياشة ما كأرك هي ما أنت ردويت ولا ما أنت أجندهز ما بقولين بمركل بباندونا مركا شرع جاسو فرنت ماشان تلكن هرت أنا علوم لين هي الدين بالين هي oo dad muslimiin nahay oo dad Ilaahay yaqaanaan nahay oo sharciga iyaga iyo culimada aan ku qanacsanahay waad arkaysan culimada ugu waaweyn Sheekh Diris Sheekh Mustafa culimada magacooda hebel ma dhigi karo waad arkaysan inay ka hadlayeen sharci dalka laga hirgelin karo ama la keeni anigu sharciga aan oranayna warqadahaas la watay waxa ayaan ma aqaan waa wax gaalo waa xeer gaalo waa dhaqan gaalo caruuriba Yurub iyo Mareykan waxa looga soo cararay waxyaabahaas iskuulaadka lagu dhigo way ogtiino Kenya guriyaheeda intay marayaan iyo Turki Soomaali inta soo carartay bay waxa kala soo carartay caruurtooda wax iskuulka lagu inuu ka daba keeno markuu daba socdo ilaa 2017kii ma soo dhaweynayna anagu baarlamaanka lama keeni karo dalka Soomaaliya lama keeni karo dadka sidoo caruurta Quraanka loo dhigayo la yiri ansixinaysaan ardada dugsileedaana oo halkaan la yiri waa fadhiyaan baarlamaanka ayagana waxaan ka codsanayaa dad bay matalaan ummad bay matalaan Soomaaliya bay matalaan waxyaabaha xaraanta ah oo nala ku hoos wado in anagana nala ka daayo anaguna aan ansixin ma ansixin doono lama ansixinayo qofkii xabar ka tagi lahaa iyo kii gaala sharciga waxay lahaa iyo anigu
ma ansixin doono ma malaynayo in sharci baarlamaanka la keenayo guddoomiyahayga aadan madoobe sheekh aadan madoobe waa nin culummo maanta si fiican buu dadka maskaxdiisa u dejiyey laakiin waa inaan baarlamaankana la keenin maxaa ku dhahay tii sheeg deegaanka dalkana laga saaro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi